السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeenan waxaanu kaga hadli doonaa saameynta uu ku lahaa ka ganacsiga dadku ariga Soomaaliyeed. Ka ganacsigu dadku waxa uu kamid yahay ganacsiyaha ugu facaweyn ee aadamuhu iskula kacaan, mana ahayn uun mid ku kooban ama isir gaar ah ku saleysan, balse dhaqan hore ayaa meelo badan oo arlada kamid ah ka jiri jiray oo ahaa in cidii dagaal lagaga adkaado la gumaysan jiray. ganacsigan jaadkan oo kala ahi inkastoo uu baryahan dambe muuqaalo kala yeeshay, waxa uu ahaa mid aad ugu baasan adduun weynaha. tusaale ahaan amintii u dhaxaysay qarniyadii 16aad iyo 18aad ugu yaraan 18 milyan oo dad madow ah ayaa badda Atlantiga laga gadiyay si loogu adoonsado qaaradda Ameerika iyo dhulyarooyinka Jazaa'irka ah. dhinaca kale 17 milyan oo Afrikaan ah baan adoonsi ahaan loogu iibgeeyay bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika amintii u dhaxaysay qarniyadii 7aad iyo 19aad miilaadiga kadib. haddaba dalalka bariga dhexe ayaa kamid ahaa dhulalka uu ka socon jiray ka ganacsiga dadka ee ugu ballaadhani. dadka la adoonsado ma ay ahayn kaliya dad madow ah, ereyga adoonna uma dhigmi jirin kaliya qof madow, iyadoo oo ka ganacsiga adoomuhu ka jiray geeska Afrika amin kusman dhowr kun oo guud. haddana waxaa la odhan karaa in ka ganacsigaasi xoog u sii ballaadhay xilliyadii uu kordhay dhaqaalihii dadyooga muslimiinta ahaa ee bariga dhexe, siiba xilligii loo yaqaanay casrigii dahabiga ahaa ee Islaamka oo lagu hilaadiyo amintii u dhaxaysay 750 ilaa 1258 miilaadiga kadib. mawduucan adoonsiga ka socday dhulka muslimiinta waa arrin aan si qoto dheer loo baarin marka la barbar dhigo xogaha tirada badan ee laga hayo adoonsigii dadyooga Afrikaanka ah ee ay ku kaceen dalalka reer galbeedku. Islaamku waxa uu ku dadaalay in uu toosiyo saansaanka dadka la adoonsado isagoo adeegsanaya sharciyo iyo dhiirigelin fududeynaya sidii ay madax bannaanida u heli lahaayeen dadka la adoonsado. dardaarankii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee xajkii nabadgelyeenta xujul ul wadaac waxa uu faray saxaabadii la joogtay ee basareeya koreeye kaga baqa adoomihiisa ku quudiya waxa aydan quudataan hooyana waxa aydan huwataan. waxa kale oo uu rasuulku faray muuminiinta inaanay adoomaha ku dirqiin hawl aanay qaban karinin, maxaa yeelay waa walaalahood oo uu eebba iyaga gacanta u geliyay mas'uul uga dhigay. arrimahaas waxaa laga dheegan karaa marka la darso culumta fiqiga Islaamka in ay madax bannaanidu tahay xaaladda ugu wanaagsan ee dadku ku jiri karaan. qur'aanka kariimka ah waxaa ku dhex jira 19 aayadood oo ka hadlaya arrimaha adoonsiga, intooda badanna waxa ay xoogga saarayaan siideynta iyo madax bannaanaynta adoomaha. sunnaha iyo habdhaqankii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa laga dhexeli karaa tusaalooyin cadcad oo dhiirigelinaya madax bannaanida adoomaha. mid ka mid ah oraahdii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa u dhigan sidan: qofka madax bannaani siiya adoon waxaa laga badbaadinayaa in holaca cadaabta. waxaa kale oo uu muuminiinta ku booriyay siideynta adoomaha xilliyada dayaxmadoobaadka. ha yeeshee muslimiinta oo dhammi kuma ay dhaqmin wax sheega iyo qaabka uu Islaamku u maareyn lahaa dhibaatada adoonsiga. haddana si xidhiidh ah oo aan kala go' lahayn ayuu dhulalka Islaamka uga socday adoonsiga ilaa bartamihii qarnigii 20aad, waxaana taas oo loo tiirin karaa in Islaamku si la mid ah diimaha kale ee samaawiga ah aanu dhigin nas adoonsiga ka dhigaya lama taabtaanka. teeda kale sida uu qabo John Hanwick oo adoonsiga iyo carabta aad wax uga qoray, isbedeladaas uu soo kordhiyay Islaamku waxaa loo adeegsaday sidii bilaawe laba af leh kol haddii aakhiro abaalmarin weyn lagu helayo siideynta adoomaha, taas oo ah intii adoonsiga ka baxda ama madax bannaanidooda heshaa waxaa meeshooda soo buuxin jiray dad cusub oo la qafaashay. dhaqankan jaadka ah ee ka jiray bariga dhexe waxaa soo gaarsiiyey in adoonsigu uu sii jiro xilliyo aan sidaas u sii fogeyn waana tan amintii laga joojiyay dalalka ay ka mid yihiin Qatar 1952 ayaa laga joojiyay ka adoonsiga dadka, Sacuudi Carabiya 1962 ayaa la joojiyay, Yemenna 1963 ayaa la joojiyay, Imaaraadka Carabta 1963 ayaa la joojiyay, Cumaanna 1970. haddaba mar haddii dadkii xeebaha deganaa ahaayeen Soomaali aalaaba ma ay dhici jirin in dad Soomaaliyeed loo iibgeeyo degal carab, maxaa yeelay ugu yaraan kol haddii ay muslim ahaayeen way ka dhowrsoonaayeen adoonsiga sida uu jideeyay Islaamku. ka caaganaantaas in dad muslim ah la adoonsadaana
waxa ay u dhowdahay in Soomaali badani u soo dhigarogtaan Islaamka. Dhinaca kale, qaab dhismeedka beeleed ee Soomaalida ee tolnimada ku dhisan ayaa qofkana u ahaa xayndaab nabadgelyo. Isbahaysiyadii jirayna waxa ay sii xoojinayaan qodobkaas sidaas daraadeed Soomaalida dhexdeedu iskulama dhici jirin is-adoonsiga, iyaga oo ka boqo qabay argoosi. Inkasta oo si tuugtuuga ah ay qafaalasho dhici jirtay, sheeko aad u muruga iyo xanuun badan oo ku saabsan tiro hablo Soomaaliyeed oo adoonnimo niman Carbeed xeebta bariga ka xigta Berbera kaga qafaasheen oo ay Khaliijka Carbeed u iibgeeyeen ayaa ku xusan buug yar oo qoray Dr. Suldaan bin Maxamed Al-Qaasimi. buuggaas oo la yiraahdo Risaalatu Sucaama as-Soomaali ilaa Sheikh Suldaan bin Suqra Al-Qaasimi. dhambaalkii duqeyda Soomaaliyeed ee ay u direen Suldaan bin Suqra Al-Qaasimi 1877 waxaa ku guda jiray qoraal xambaarsan qiiro oo ay odayaal Soomaaliyeed u qoreen suldaankaas oo ay kaga hadlayeen saansaanka ka jira dhulka Soomaaliyeed. ha yeeshee warmooge ayaa haysatay odayaashaas, maxaa yeelay suldaankaasi awood uu baaqooda kaga falceliyo ama uu soo gurmado ama laga yaabaa rabitaan ku aadan arrinkaas midna ma lahayn. xilligaas imaaradiisii iyo guud ahaan dhulka Carabta waxaa xoog uga socda adoonsiga dadka, waxaase laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 19aad ganacsigaas cadaadis badan saaray Ingiriiska oo dagaal kula jiray joojinta ka ganacsiga dadka. sheeko dhaqameed kale oo uu soo xigtay qoraaga iyo taariikhyahanka Soomaaliyeed Axmed Barkhad Maax, kana soo xigtay kitaabka Cajaa'ib al-Hindi ee uu qoray Busuug ibnu Sahriyaal, ayaa iyana xoojinaysa arrinka adoonsiga ah ka socday xeebaha Soomaaliyeed ee ay ku lug lahaayeen Carabtu. waxa uu kaga sheekeeyay nin dhalinyaro ah oo ay niman Carbeed xeebta Qandala ka qafaasheen kuna iibiyeen sayladii adoomaha iyo adoonsiga ee Khaliijka Carbeed iyo sidii uu uga soo samata baxay isaga oo soo maray rafaad iyo dhibaatooyin badan si uu uga soo laabto bulshadiisa reer Qandala ee uu ka dhashay. ugu dambeyntii ku guuleystay in uu ka soo badbaado eedaadkaas la mariyay. hase yeeshee marsooyinka Saylac, Buluxaar, Berbera iyo kuwa koonfurta ariga Soomaaliyeed ayaa ahaa qaar laga dhoofiyo dad ka soo jeeda Xabashi, Oromo, Uraag iyo isla kale oo Afrikaan ah. arrintan ayaa Oromadii oo baadidoodu gaala ahayd ku xambaartay ama ku sunduleysay in ay ka turkaan dhulka xeebaha kulaalaha ama u dhow si ay uga nabad galaan qafaashasada. taasina waxa ay door siisay Soomaalida xilligaas joogtay in ay dib ula soo noqdaan dhulkii ay Oromadii hore uga qabsadeen ee dhinaca galbeedka xiga. Marco Reyne, barasaabkii Saylac 1920 oo soo xiganaya Buurton, ayaa buuggiisa xusay sidan: adoomaha Saylac laga dhoofiyo gub kasta ama sanad kasta waxa ay gaarayaan 600 ilaa 1000 qofood oo loo dhoofin jiray Muka, Xudayda iyo Jidda. ka ganacsigaas foosh xumi waa uu socday ilaa tabayaaqadii qarnigii 19aad. Buurton waxa uu xusay in maamulkii Saylac ka jiray ee Xaaji Sharmaarke bartamihii qarnigii 19aad uu cashuur hal qishan ah oo dahab ah xilligaas u dhigmaysay $3.4 ka qaadan jiray madax kasta oo adoon ah oo laga dhoofinayo Saylac. Buurton laf ahaantiisa waxa uu sidoo kale soo xigtay Rudolfiisa Dhaberta oo socdaal ku maray Saylac sanadkii 1503, kaas oo sheegay in tiro badan oo gaala ah oo ay muslimiintu dagaaladii xilligaas ka dhaxeeyay iyaga iyo Kiristaanka laga soo qafaalan jiray loona dhoofin jiray Persia, Iiraan, Yaman, Baabiloon, Ciraaq iyo Maka. dhinaca koonfurta siiba xeebaha Banaadir ka ganacsiga dadku laba dhinac ayaa laga dheehan karaa. waata hore waxaa jiray ganacsi dibadeed oo ku xidhan kii ka socday xeebaha Afrika ee Badweynta Hindiya. ganacsiga ugu weynina ahaan jiray dhulyaraha jasiiradda Zanzibar. dadka adoonsiga loo wadana xeebaha loogu sii dhoofin jiray dhulka Carabta, Iiraan, Xijaas iyo Hindiya. ka labaadna waxa uu ahaa mid gudeed oo aad u soo shaacbahay qarnigii 19aad. sheeko dhaqameedyada iyo ilawareedyada u noqonaya xilligii gumaystayaasha reer Yurub soo caga dhigteen koonfurta ariga Soomaaliyeed iyo ka horba waxa ay sheegayaan in badiba Soomaalidii deganid magaalo xeebeeda sida Muqdisho, Marka iyo Baraawe ay adoomo ku hawlgelin jireen samaynta dharka alantiga ah. sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada ahi
ay addoomaha ku raaci jireen addoomaha ay haysan jireen iyo adeegsi kale oo galmo. waxaase qayb addoomaha ka mid ah aad loogu adeegsaday beerfalidda oo la qabatimay qaybtii dambe ee qarnigii 19aad. addoomahaas badiba waxaa laga keeni jiray cariga Itoobiya guntii iyo gabagabadii ilaa laga soo gaadhay qarnigii 19aad. guntii iyo gabagabadii ilaa laga soo gaadhay qarnigii 19aad garaadka dadka oo aan u bislaanin joojinta ka ganacsigii caddaa ee aadamaha ayaa ka dhigay in meelo badan oo arlada ah oo ay ku jiraan xeebaha Soomaaliyeed noqdaan goobo laga dhoofiyo si loo adoonsado. haddaba in ganacsigaas laga dhigo lama taabtaan inkasta oo uu siyaabo kale isu rogay oo aan la arki karin maanta dad la soo joojiyay saylado sida xoolahana loo kala naqaysto. waxaa la dhihi karaa joojintiisu waxa uu ka mid yahay waxqabadyadii ugu qaayaha badnaa ee aadamuhu ku talaabsaday intii uu soo jiray.